isweydii yaa Suuriya u dhiibay shiicada yaa u dhiibay ya taariikhda akhi reer galbeedka u dhiibay reer galbeedka gacanta ka geliya calawiyiinta ama nusayriyada hadda ka talisa ee ahlu sunnaha baabi'isay 250,000 oo sunni ah baa dhowr sano gudahood lagu dilay 7 milyan ka badan baa banaanka yaala oo qorraxda iyo barafku baabi'inaya oo ahlu sunna ah magaalooyinkoodii dhulka lala simay wariyaa u dhiibay nusayriya calawiya dalka u dhiibay waxa u dhiibay reer galbeedka u dhiibay Hizbullah iyo Lebanon yaa u dhiibay oo ku haya reer galbeedka u dhiibay Iraq inagama fogeen mar dhow bay ahayd yaa gacan galiyay oo u gacan galiyay shiicada soo Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ma ahayn mar dhow bay ahayd Yemen oo hadda ugu dambeysay xuuthiyiinta yaa garab siinaya Iran iyo reer galbeedka oo hoosta kala jira waxba yaan ciyaarta lagu bedeli كل ذلك هل سؤال يسويديه ولقى مما قشي هل نينو الشيعي أيا انت الله قاضي با قنتنامو اللو وحده مما قشي قنتنامو ولقى نين شيعي ملقي هل أرور أو أرور ربا كم بذا الشيعة ملقي لي الليس كأرقق حسادة ما خصوصا تا مسكرنا يسا حزب الله تهن لبنان كدق اللهم يا إسرائيل بولد دق اللهم يا الليهي in lagu daro ururada argagixisada waxa ka dagaalamaya waa reer Yurub yaan lagu darin bay leeyihiin war ma lagu daro ilka abees hoos ka xiriirsan waa la isogyahay anaga marka in la khaldo oo film iyo riwaayad beena naloo dhigay oo makhduuciin noqonay wax saxsan ma ah ciyaarta inta ay leegtahay meesha ka socoto waynu fahmaynaa hadaynu aqli iyo garaad iyo garasho leenahay ninkii aan lahayna wuxuu u baahan yahay wax badan inuu dib ugu noqdo taariikhda hadda dib u raacdana taariikhda muslimiinta dib u akhriyo kutubta taariikhda ma jiro gaalo dhul islaam qabsatay illa shiica garab u ahayd midalka ugu weyn waxa weey qarnigii 7aad markii Baghdad ay qabsadeen tataarku markay qabsadeen ninka soo galiyay oo hoos kala socday oo waday nin raafidi oo la dhihi jiray ibn al-Alqami buu ahaa ikhwaanu safa aaway صراعي كدحيه مسلمين تي رير يوروب حقي ايران كغشي حقي الشيعه كغشي قال هذا يقربوا هاي تاريخ ذا ان الاخريا لو بيتن جوبتي في تكسيبه سداس برادد هبيرات الشيعه قال انغا علينيسو رافضه قال لا دغالميسا ابير وركاسي وا وران جيرين ومسرحيه iyo film la isu dhigayo waay maanta halistaasa ina haysata waxa aad looga xumaado qalbigeena inuu ka gubta ay tahay maalin dhaweyd caasimadaha Soomaalida deegaamadeeda mid kamid ah oo afkaartan rag wato Soomaaliya ay joogeen oo soo galeen ayaa maxfal dhan oo la wada joogo nin kamid ah intuu istaagay buu ay ula istaagay hooyadeen Aisha ummul mu'minin المبرأة من فوق 7 سماوات والصومالي bana dhageysanaysa xaaskii nabiga oo jeclaa دور iyo 10 aayadood ilaahay ku soo dajiyay daryeelideeda iyo iyada sababteeda ayaa mid Soomaaliya intuu soo istaago caayay xalashaan shiicada rabin Muawiya ibn Abi Sufyan ayaa maxfalada hortooda laga caayaya waxaan aad uga xumahay warbaahinta iyo telefishinada Soomaalida qaar kamida inay tamkiininayaan oo ay keenayaan oo ummadda hor keenayaan dad mabaadi'da iyo afkaarta rumaysan ummadii oo aqoonina si fudud ay wax u gelinayaan oo qarsoodi ah waxaan doonayaa inaan digniinta bixiyo khatar bayna haysata mashaakishiina haysatay kuwa ugu waaweyn bayna kamid tahay fikirka shiiciga in soo galay dhulkeenni soo galay khatarta uu soo waday ka dambaysa ka daran mas'alada iyada in lagu baraarugo oo si wada jir ah looga wada hortago ayaa laga marmaan ah oo laazim ah ummaduna inay ku baraarugto arinta iyada sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin